soo dhawaada warheedha soo dhawaada boogayaal asxaabta qaaliga ah meel kasta dunida ka joogtaan xaalad walbaad ku sugan tihiin. ilaahay culays walboo jira fudayd ha inoogu bedelo, kuleyl walboo jiran qabow ha inoogu bedelo. ducadii ahayd kuleyl walboo jira ilaahay qabow ha inoogu bedelo. baraf baa ka dhacaya maanta caawa Garowe, caasimadii Puntland State of Somalia, caasimadda wadooyinka iyo nadaafadda u saaxiibka, caasimadda the best town plan-ka ama istiraatiijiyadda ama qaab magaalo loo dejiyo ugu casirsan geyiga Soomaaliyeed. maasha Allah baan leenahay ku dayasho wanaagsan. waa roobsatay magaaladii 3 maalin ka hor 4 maalin ka hor waa wareey walaalaha war waxaan ku leeyahay maxaa jira qof meel ha u qaado mid yiraahdo magaalada hawlo badan baa ka socda, mid yiraahdo roobkii dhinacyadu naga maraya, mid yiraahdo war waxaa khaldan war bal roob doon la sameeyay war ma artay waxa weeye ilaahay raxmadiisa sugu weyn baa ka dhacday ilaa xalay habeen barkii salaadii subax maanta ilaa galabta waxaan ku yiri waa ilaa maalin ka horna yar buna qaboojiyay. inta joogta waa ku qabowsateen baan filayaa, inta ka maqan oo u soo boholiyooday oo la ilaahu yaa mar Garowe igu soo dhax tuura nabadgelyo dalkiigu keena. waxaan leenahay wata magaaladii waa roobsatay, magaalooyin badan oo ka agdhow dhan waa roobsadeen dhinacyada. insha Allah maalmo dhow waxaan filayaa oo aan dhawaanba maran yar tagay aan ka arkayay dooxadii bixin meelo badan oo magaalada duleedkeeda oo shuux yar helay, laakiin ilaa xalay ilaa maanta roobku meel goobo badan oo dalxiis loo tagi jiray oo galbihii dadku u bixi jireen oo ma artin walba qadiifadiisa maamaankiisa intuu qaato caruurtiisa iyo xaaskiisa gacanta qabsado ama de magaranaysa ciida markaa ugu dhow halka waqtiga lagu soo qaadan jiray waa diyaar. ilaahay waa inoo qurxiyay, waa inoo qaboojiyay. hal mid baase ka maqan meesha aan weli arag cid hadal haysa anigaba ku daro togi Garowe ama dooxa ama durdurka ama wadadan bridge-ka labada bridge inoo saaran yihiin sida doonta u garee oo waa aqoonsee biyuhu waa iska soconayaan, waa qulqulayaan durdurku ilaa xalay ilaa habeen hore ilaa maalintii hore waa soconayaan. caruurtu waa inoogu dabaalanayaan wal saas waxaan ku yiri roobka iyo sabaxada iyo dabaysh iyo dabaasha ka dhacaysa waa yaabas. laakiin hal mid baa inaga maqan, dadkeenu talo wax ma beertaan, talo wax ma beerana beerooyin min lahayn. maxaynu biyaha u ceshan weynay, maxaynu dhaamo u samaysan weynay, maxaynu barta godku u ka ballaaranayo ama laga sameyn kara dhaam wanaagsan meenan meel u samaysan karin inuu biyaha ku kaydsano si aan uga faa'iideysano jiilaalka, si aanu beeraha ugu faa'iideysano, si aanu meelo qaar baa jirta haddii laga hawlgalo oo shicibku isku tashado oo dowladooda hoose iyo dowladooda guud bay la tashadaan ay biyaha dhul ballaaran si ugu leexin karaan oo dhulkaasi dhul marintii lagu daadiyo seeds lagu abuuro cagaar laga dhigi karo. talaweynu soo jeedin karna, laakiin wax qabadka oo laga dhabeeyo oo gacmaha la isqabsado waa muhiim. meel walba joogtaan dal iyo dibadba horumarka inoo ballana, talooyinka wanaagsan oo aynu commentiga iyo meel walba ku soo qornaa inoo ballana, isdhiirigelin baa inoo ballana, gacmahaynu isqabsanaa inoo ballana, dadkeena oo walaalooba oo wixii xumaan wada la iska qabtaa inoo ballana, goobaha amniga la shaqeeyaa inoo ballana. wax walba laga cabanayo cabashadeeda in public iyo social media lagu soo qorqoro oo dhaleen dawlad iyo dad bal lagu tuurayo. waxa inooga muhiimsan oo gacmaha isqabsana ka tashana xiriyaha amniga ama goobaha amniga ama meelaha laga la xiriiro inuu garanaynaa ay u gudbina dawladda la shaqeeyno. maartay dawlad aad ka cabanayso dawlad la'aan baa dhaanta, dawlad la'aan way dhaanta. marka inaad la shaqeyso maxaa ku diiday adeertan haddii bilaa dawlad ay noqoto Soomaaliya bilaa dawlad noqoto meel walba bilaa dawlad noqoto guryaha la isku soo daadanaya guri aad u raaxayso habeenkii aad aadayso ku soo nasanaysa ma jirto, meel aad ku nasan doonto ma jirto. marka dawladda aad haysato haddaad doonto mucaarad ahaw, haddaad doonto maxaafad ahaw, haddaad doonto dhalinyaro ahaw, haddaad doonto arday ahaw, nooca askari ahaw, isku si in loola shaqeeyo waxaad markaa gacanta ku haysata ayay kaa mudan tahay. sababtoo ah waxyaabo badan oo aadan dareemeyn oo markaa ku hagaagsan baa jira, laakiin haddii ay meeshaas wax ka khaldamaan waxba ku hagaagi mayaan.
ganacsi furnaan maayo. mucaarad xataa noqon maysid sababta waxaad mucaarad waxaa lagu noqdaa wixii la doonayo la jecel yahay. mucaaradka qofkii mucaarada la yaab ma leh sababta wixiisu hagaajisanaya, dhaliilaya, toosinaya. toosintaasina mid wanaagsan bay mar walba aynoo noqotaynu filaynaa oo lagu tusaale qaato. isgarab istaag iyo iskacan qabsi iyo horumar baa inoo ballana. biyaha toga soconaya ciddii ka faa'iidaysanaysa ama magaalada banaankeeda ha deganaato ama magaaladaba ha joogtee, togaa weynaysa u qulqulaya oo habeen walba soo dhacaya biyihiisa. waxaan filayaa in lagu hawl jiro, laakiin la dedejiyo ciddii ka hawlgeli karta iskaa wax u qabsaa. dunida laysku dhaafay iskaa wax u qabso. war khamiis iyo jimca dadku may ballamaan oo sabti axad may ballamaan oo xilligii macquula intay ballamaan ma yidhahdaan toga inoo ballana inuu god weyn ka qodanno inta xoog oo caafimaad qabto. waqtigaaga saacad ka soo goo halkaa layskugu yimaado dhaan baa la qodayaa. markaa dadku iyagu hadda isku tashadaan oo la yidhaha maalin hebel ee halkaasaa la dhisayaa dhagaxa 40 koon naga xigaa qof walba badeelkiisii ma jira fasi dowladdiisa aad baraan maqli jira ama dowladda dhexe Soomaaliya uma dowlad kale oo macquula oo maanta la sheegi karaa inay ka dambeysay iska wax u qabso. cid walba oo waalidiinteena way garanaysaa ninkii looga sheekeeyay, ninkii maqlay, ninkii soo joogayba. dowladda waxaa muhiim ahaan lahayd ama cid arrinkaa ku fakaraysa haddii la heli lahaa oo dadka maaragtay hagi karta xaafad walba community. hadda xaafadda Mubaarak, xaafadda la yidhaahdo Wadajir, xaafad walba 1 August community center baa loo sameynaya. cid walba waa garanaysaa macnaha horumar iyo waxqabad dalka la doonaysa. halkaasaa la iskugu imaanaya ilaa ma khamiista la ballamo, jimcaha la ballamo, labada maalin oo weekendka ah. xaggeena wax maxaa xaafadeena ku soo kordhay, maxaynu u baahannahay, maxaynu qabsan karnaa, halkeenu maaragtay howlala nadaafad ka fulinaa, wadadeebaynu dib u dhisnaa ama wadadeebaynu hadda bilownaa. waxaa ugu yar qof shaqeeyay qof aan shaqeyn baa bixin karaa 0.5 baa ugu yar. Soomaali meel joogto arrinka waa ka faa'iideysan kartaa wayna ogyihiin, laakiin balad kale lagu mashquulsan yahay. balad kale oo aan la garanayn wax allaala waxay tarayso iyo wax allaala waxay soo kordhinaysaa lagu maqan yahay. fadhi ku dur anigu xataa kowka ah iska reebi maayo ya maarta dadka dad u shaqo fiiqdo oo magaranaysa adigu iska leexiso waxaad noqonaysaa maroodiga takarta saaran markay maroodiga takarta saaran markay kan karanta saaran barka adigu meelaheedu wuxuu noqonayaa isku meejeede dadka kale u jeede. marka guul iyo go'aan oo balana madaxdaynu ducayno ilaahay madax wanaagsan ileen markii kursiga fuulayeen iyo markii maartay la dhaarinay iyo markii wax baan dhahayno shan ay meeshii yimaadeen qaabku doona baa ku yimaado ama jeebkiisa soo isticmaalo ama qaab kale oo dad banaha ku yimaado adeer waa taagnayd inma kuma khasbeen كمان متحرادين مهديدين حسلوني دلك iyo wanaag iyo horumarka aad u eegaya raali ka ahay maanta raali ku ahaw waqtigiisa qofkaasi ha dhamaysto meeshuu doona ha joogo. muhiimad waxa weeye ilaahu noo toos, ilaahay waad aragtay noo toosi wuxuu yahayba ilaahayna inoo toosiyo barwaaqo iyo wanaag iyo horumar ilaahayna siiyo wixii balaayaa ilaahay naga qabto. iska hawla badan dunidan maanta gabal iskaga jira wada aragtaa cid walba dadkii adduunka sheeganaya awoodaha ilaahay baa awood leh baa meelaha aad arkaysa ayagoo barya tag oranaya balnas ku soo riday. marka isku tashiyo walba looga baxa dadku isku tashada ganacsiga la abuuro. dhalinyaradu hadday shaqo abuur hesho dadka waaweyn shaqo abuur helaan cid walba dunidan waa shaqaysan macal waayeelka maartay dunida jooga waxa ugu yar dadka beeshan ha loo qoro meel la fadhiisiyo xataa shaqeynay fadhigaas ku shaqeynay ama talooyin ha loogu yimaado ama waxyaabo waxa ugu yar qaban karaan markaad iska qiyaasto ama ina cudbi ayay magaranaysaa jaakada suufay tolaya fadhigaas ku tolaya waa jimicsi maskaxiyan oo fiican. waxyaabo waa yaaragnimadooda buuga ka qorayaan maskaxdooda marba la tijaabinaya. waxaad maraysaa kii dhalinyarada ku jooga warshadu shaqo abuur ka sameyn kara, wuxuu shaqeyn karaa overtime buu shaqeyn karaa 24 saac buu shaqeyn karaa. muhiimadu waxa weeye dadkani hagis bay u baahan yihiin, waxa oo hogaamiye u baahan kursiga siyaasadeed dadkani way u wada yaacaan ama anigu xildhibaan baan doonaya, anigu wasiir baan doonaya, anigu xafiis baan doonaya maaha. adeer beerta aad, adeer bariga aad, adeer
dhaamam iyo wax intaad qodato halka biyo abuur ka samayso haddaad doonto koronto ka dhalay oo magaalada ka soo iibi adeer xaggaa ka baxo waxaad samaysaa digaag iyo waxaad abuurataa iyo meel beer dhan oo xayawaanaadka yaryaro maaragtay wixii waxtar u leh halkaa ka samay adeer sisin abuuro halkaa saliid macsaro ka soo saar halkan ka baxo wax un ma garanaysaa inaan isku dayno waxaasee lagu helaya qofku maalgashi waa inuu raadsadaa cidduu meeshu wax ku tuhmayo dowladdu dowladday doonta meeshay doonta maa joogtay qofkii dhallinyarada maalgashi inay u fuliso ilaahay mid wanaagsan oo dhallinyarada hoos u eego oo dalka hoos u eego ilaahay ha inoo keeno ilaahayna dalka ha inoo gaarsiiyo qof iyo cod aynu maaragtay waa waxaynu ku taamayno oo aynu wada sugayna si aynu dad wanaagsan oo toosan ula soo baxno ilaahay inoo keeno intii xanuunsan ilaahay inoo caafiso inta caafimaadka haystan ilaahay u siyaadiyo kuwii maskax caafimaad qaba mustaqbalkooda iyo rajadooda wanaagooda ku eega ilaahay naga dhigo ilaahay dadka uu madaxdooda u hagaajiyo oo waalidiintooda iyo dadkooda maqla oo waalidiin horumarkooda ka shaqeeya ilaahayna siiyo madaxweynuhu dalkoo dhan buu waalid u yahay taa inuu ogaado ama ayaa wanaagsanaan lahayd sababtoo aakhira waa la weydiinaya marka waxaa kaloo innaga inuu yaallo isku tashiga waxa la yidhaahdo qofka iyo wixii horumaray inuu eego dadkan haddii shaqo abuur la wada samayn lahaa bal haddaad fiiri shaqo abuurka waxa ugu yar oo qof dad dhallinyara u samayn karto waxaa weeye hadda gobollada soomaaliya o dhan haddaad eegto hal tartan oo ka jira maad aragteen tartankaasi xaafadda eriyada tartanka lagu qabanayo dadka jooga o dhanba tikid ba wada goosanaya tikidka yaa goosanaya dadkaasi tikidka lacagta xagee keenaya ku goosanaya dadka tartamaya waa dhallinyaradii tikidka la goosan baa dhallinyarada hadhow lacagta laga siinaya cidda meesha ka shaqaynaysa lacag laga siinaya dadkii meesha jooga biyo iyo sharaab wax loogu diyaarinaya waa wax ugu yar oo dad shaqo loogu abuuri karo tartamayaal la qabto aqoon wadareed la qabto maaragtay maxaa waxaas dhan lagu gaari karaa dalka haddii warshado badan la keeno shaqo abuur badan la keeno maskaxdii baa wada kala furfurmaysa ideyooyin cusub baa imaanaya waxa weye qof walba idea wanaagsan oo kale la imaanaya waxaas dhan maxaa lagu gaari karaa waa un isku tashi wey isku tashi bulsho oo looga maarmo qofku inuu yidhahdo dowlad unbaa wax ka sugaya dowladdan eegaya dowladdan mucaaradaya dowladdan daba ordaya marka inta wanaagsan ilaahayna fahansiiyo oo horumarka iyo wanaagaynu ku gaarayno waxaan filay hadalkeenu waa nigu badiyey intaa iyo inka badan maskaxdii way ka dhex guuxaysaa tiinana way ka guuxaysaa inuu ducayno bal ducayno ilaahay inuu bal la waafajiyo dhinaca horumarkii wanaagga aakhiriya adduunba insha allah guuliga gobonima nii rajaynaya dalkii waa la qabowshay wixii dibadda ku maqanay soo yaaca kusoo dhawaada dalkiina soo maalgashada aniga hotel iyo maqaaxi la furaya madaxayga way ka daaleen dadkuna way ka daaleen indhuhuna way ka daaleen adeerow ani ducaynay warshada tawir ilaahumay plastic ilaahumay findhicir samayso ilaahumay caday samayso ilaahumay tomato samayso ilaahumay batato war waxu la kaalay war wixii aad meelaha kusoo aragtaan oo dalkiinoo keena oo warshado jaban raadsan oo kuwa qaaliya raadsan oo soo dhawaada warbawayaal waxaan kaloo arkay asxaabta qaaliga ah waalidka iyo faamiliga iyo dadkaan is jecelna halkan ku midoono oo akoonka waxaan u malaynay dad badan baa jira oo aad aanu isku jecel lahay oo soomaali weyna oo buntland darisa oo ehela oo meeshay doonaan statekoo doonaa ka soo jiraan soomaali weyna oo waxaan moodayaa un bahalku waa la daawanaya laakiin subscribe-ki iyo share-ki iyo wixii dhan baa laga ilaaba war akoonkan waa akoon soomaaliyeed waa akoon gobolladeena dhexe iyo meel walba u hiilinaya meel walba horumarka dalka iyo wacyigelinta iyo dhallinyarada iyo baraarujinta iyo minaha hiil iyo hooba ah marka kor loo qaado yaan la ilaawin mar walba subscribe-ka iyo share-ka commentiga like-ta allah ni ku leeyahay dhammaantiin